أشهد أن لا إله إلا الله. maanta waxaan idinla wadaagaynaa war farxad leh oo ku saabsan masjid cusub oo laga furayo gobolka Bern ee dalka Switzerland. masjidkan cusub wuxuu noqon doonaa meel ay ku mideysmaan muslimiinta laguna cibaadeysto, lagu barto diinta islaamka, isla markaana lagu xoojiyo isdhexgalka bulshada. masjidku wuxuu yeelan doonaa qolal salaada ah, meel gaar ah oo dumarka ah, goobo waxbarasho oo loogu talagalay caruurta iyo dhalinyarada, iyo meelaha kulamada iyo barnaamijyada bulshada. waa kuwan culamaa'udiinta kasoo qayb gashay iyo dhalinyarada kasoo qayb galay furitaanka cusub ee masjidkan ee gobolka Bern. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. انت كدب ما انت وحا شرف وينو إن كقيب قلنا حفلة دان ولا حريرته فوريتانك مسجدك جاليد أما مجتمع صوماليات أي ما أنت فورتين هيا ما عرفت فرحة صحيح وتاي مناسبة وين جال مناسبة وحي كمر قاتك عيسى dadku haddii isku yimaadaan ay wax go'aansadaan ayna mid ku yihiin in waxaas ay gaarayaan, ilaahayna uu sakhirayo, ilaahayna uu fududaynayo. fikradan in jaaliyada ay samaysato masjidkan ay samaysato waxay soo bilaabatay markii la xiray masaajidkii hore aan ku duka jirnay insal isbitaal ku yaal. marka kadib ayaa la swareystay, waxaana la go'aansaday inaan raadsano meel aan ku cibaadeysanno, meel aan ilmahayna wax ku barno, meel aan maaragtay shirarkayna aan ku qabsanno, meel aan xafladooyinkayna iyo muxaadarooyinkayna aan ku qabsanno ayaa la go'aansaday. waqti badan ay soo jiitantay, alxamdulillaah maanta waxaan haynaa in wixii aan ma arkino ku tamaninayni aan rabnay aan gaarnay. ilaahay fadligiisana maaragtay noogu suura gashay inaan waxaasoo dhan aan qabsanno. marka walxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, waxaana ilaahay ka rajaynayaa meeshaan maanta aan furnay inay noqoto meel ilmahay sii dhaleen ay ku cibaadaystaan, ay ku kulmaan, ay wax ku bartaan. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وحاءات يات فرحتنا هو أمانته إن أن فرني بيت الله مقالة بيرنا. أنا أقول هذا مقع وضياشة تحرير بيرنا مدة الجوجي ويران صدق سنة وأن هيسن مل أن كعبادي سنة وأجارة صومالية أي كقارتان وحبرشوينك دينية يمد مادية أنتوا وحن نسيبه يلا نيمانتا إن أن هوشان أن فرانه وحكستو الله دقاقه وقت بيليهن مركل دقاقه ولا جارية جوشي ولا جارية ما أنت حن جاري جوشي يدو صدق سنة كذب أن كفرني بيت الله يلا بيرن وحا حسيد مرن إن هوشان كهر أي أضياشو باللابين أضياشو مدير رئيس ودين وحنا صورة قلي وين أساعته وحول بوحيد بهذا وقتي الله وقتلا قلي ما أنت إنه قتي ما أنت لفرعي وحنا إسلام مركز هوشان سب وحنا وقبتي للي يراضينا وآدي قيمة بدن كذب مركي هوش وأيه ولا ورجال سنة كان لو كنا إلى وقت شنطة كنا راعين سيد الله هلا بيت الله وآدو عمر إلى قدسه زايد بقالة برنا يدو وبدو ولستي وحن آدي وأمانة يا هوشي قبطي لليرادة إلا هذا يكون حجرته أنا رجينا إلى جوشة أي سي ودان إسلام مركز نيجارسيان هير كفايستان جنريشن كده بي إنتوا وحا إنتهي إن أمانه وأنو مهد عليه لما لليرادي وكسر غير قاطع ووريه بدوبي عبد العزيز مهد iyo dhammaan dhalinyaradi hawsha ka qaatay oo leh muslimiin ajnabi ah muslimiin Soomaaliyeed dhammaantood waxay qabteen waa hawl aad iyo aad muhiim ah waana lagu guuleystay. waxaan rajaynayaa wixii maanta ka dambeeyo in aanu yeelanay meel aan caruurteena ku barno
diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaan Ilaah ka baryaynaa inuu nagu guuleysto waxaan dhammaan Soomaalida joogta magaalada Beerna aan leeyahay hawshan way soo gabagabowday dhalinyarada way ka shaqeeyeen waxaan idin rajaynayaa in aad camirtaan masaajidka Baytullaahi waxaa cabira masaajidka waa Baytullaahi dadka aaminsan marka inaad soo camirtaan hawshan aad ka dhigtaan cibaado wanaagsan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما أنت مساجد نوفر ما في عن ما وين ما قيمة ولا مركب ما شاء الله صوالح بيننا وهراء وصعوتي ما شاء الله قول علينا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبت أحدها أفرت بيشة جنوري اسموني من مسجد كينا عصب Soomaalida Beerna مسجد بلال xafladiisa furitaanka dareenkeena runtii aad buu u kacsiyahay maanta ummadda muslimiinta Beerna joogto intooda badan maanta iyo Soomaalida waa la isku yimid aad aan u faraxsanahay Ilaahay ha naga dhigo masaajidkan oo muddo badan laga soo shaqeeyay waqti badan qaatay inuu noqdo masaajid aan gacanta ku qabsano oo aan ilaashano insha Allah taala وأولادنا كل أكو حفظنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي يحيى دالب أحمد دقن مقالة بين غير قبل كبين الدقن وحن أدو فرح سنة مانتا ولا عليه أنا الصوماليات ومشاهد كان إنه دياريين حفلة عن خروح له بدلنا إنه وسوبيين مجد كسدحات أما أفراد عندي كر مقالة بين كيالو مجد أدو خروح بدن خيب رجله خيب دومر كلاوي ترجله أيوة مانتا يكون عزومين walaalaha gobolka degan oo dhan iyo muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee isugu waxaan leeyahay hambalyo dadka ka soo shaqeeyay dadka waqtiga geliyay aad iyo aad ka mahad celinayna assalaamu calaykum waxa way Yaxya Daalib Axmed reer Bilaaj Carab bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin maanta halkan aan joognaa waa magaalada Beerna caasimadda Switzerland masaajid cusub oo aanu ka furnay magaaladan oo ah masaajidkii ugu horeeyay ee Soomaalida magaaladan yeelato ayaan maanta halkan ka furnay masaajidkan waxa aas-aasay aabayaal Soomaaliyeed oo runtii kuwa halkan joogay ka mid yihiin odayaasha halkan joogay ka yihiin kullu kamarada insha Allah way qaban doontaa odayaashan ayaa muddo 4 sano laga joogo iskood isku xilqaamay lacag iska ururiyay 4 sano ka bacdina markaan la soo wadaagay dhalinyaro ahaan inaanu gacan qabano oo masaajid la furno marka masaajidka Ilaahay maanta oo noo suurta galiyay masaajidkana arkaysaan muuqaalkan iga dambeeya quruxda badan waxa diyaariyay oo ka shaqeeya walaalo Soomaaliyeed farsamo yaqaanada ugu badan waxay ahaayeen Soomaali haday tahay korontiistaha haday tahay tabikha ama roogan u ka yaala cidii dhigta wiil Soomaali ah noo dhigay haday noqoto ranchiga iyo quruxna arkaysaan marka runtii dadaal badan baa la galiyay waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinyar Soomaaliyeed waddankan wax ku bartay oo maaragtay aqoontii waddankan ay ku barteen masaajidkeena fi sabiilillah ugu shaqeeyay oo aan kaga maaranay inaan shirkado shisheeye oo aan lacag badan ku bixino ugu yeedhano oo keentay marka inaynu lacag aad iyo aad u yar ku bixino dhismihii masaajidka meeshan masaajid kaliya ma aha waa xarun aan ugu talagalay inay noqoto xarunta ummadda Soomaaliyeed khaasatan magaalada Beern gobolka Canton Beern iyo nawaaxigiisa ku xeeran oo dhan inay noqoto meel dhalinyarta timaado waqtigooda ku qaataan friday side-ka ah inay helaan meel ay ku ciyaaraan meel ay ku nafisaan meel wax lagu baro in quraanka halkan lagu baro in luqadda af Soomaaliga ta'jaadi lagu baro buugaagta Soomaaliga waa soo iibinay waa yeelan in quraanka lagu dhigo in dumarku wax ku bartaan in dadka waayeelkii iyo odayaasha iyo tafsiirkii iyo kitaabadii kale la bilaabo insha Allah dhawaan wax la bilaabi doono maalin kasta oo xada kitaab laga bilaabi doono halkan waxa ku xigi doona marka kitaabo iyo duruus kale oo ku bixi doonta luqadda waddanka laga hadlay ee Jarmalka marka muhiimadda koowaad waxa weeyaan dhalinyarta waddanka joogta ee Soomaalida ah ee halkan ku koray inaan soo jiidano in dhaqankoodii la baro in diinta la baro inay dadku ku soo xidhnaadaan in ummadda Soomaaliyeed magaalada degan iyo gobolkanba inay helaan meel ay ku kulmaan oo isugu yimaadaan oo waxna Jarmalka lagu yiraahdo tref punct meel ay ummaddu ku kulanto isugu timaado ay danahooda ku qabsato arrimooda kaga hadlaan hadda insha Allah taala waxa dhici doona 10ka bisha arooskii ugu horeeyay ama meherkii ugu horeeyay oo masaajidka lagu qaban doono taasina waxyaabaan u asaasnay masaajidka in ummadda Soomaaliyeed ay hesho xarun ay meherka ku qabsadaan oo qurux badan oo muuqaal fiican laga duubi karo
oo meherku ka dhaco cuntada lagu bixin karo meel maqaaxi la fadhiisto leh meel lagu qaxweeyo leh meel fadhi hoose la fadhiisto leh nooc walba marka waxaan ku faraxsanahay arooskii ugu horreeyey inuu dhici doono 10 bisha inuu ku casuuman yahay Sheekh Abu Dalha oo insha Allah meherka maalintaas samayn doona muxaadaro inuu jeedin doono sidoo kale in la helo meel jinaasada dadka lagu meeray naga dhinta in qofka dhibaataysan meel u yimaado ku soo hagto inaynu helay maanta meel xarun baahiyo badan aynu qabnay insha Allah ummadan ka dabirta marka dhammaan aad baan ugu faraxsanahay maanta aad laga soo qayb galay walaalihi ajaanibtiina saaciday walaalihi Soomaalida ahaa dhammaan masaajka runtii maanta waxa ka muuqata farxad aad u weyn marka qolada saxaafadana soo booqatana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin runtii masaajkana waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta iga daawanaysa ma iga arkayaana masaajkiina waa idin furan yahay kusoo dhawaada gamca furan ahlan wa sahlan wa mahadsantihiin wa jazakumullahu khayr wa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillahi raxmaani raxiim maanta waa maalin weyn waa 4 bishii koobaad 2026 waa maalin nagu weyn community-ga reer Beerna haddaan nahay maanta waxaan furnay masaajidka quruxda leh ee arkaysaan masaajidkaas oo muddo fog aanu raadinaynay ilaa dhowr sano ah ilaahay wuxuu nagu arsaaqay maanta inaan masaajidkii furano oo si fiican oo qurux badan loo agaasimo kulley dadka ku nool magaalada Beerna ee Soomaalida ah waa dad aad iyo aad u jecel marka la eego xagga diinta dhammaantood waa ka qayb qaateen masaajidkaas maanta aynu wada joogno waxayna u xil saareen kaliya dhalinyaro ka shaqeyso oo ku garab taagnaayeen dadka halkan jooga dhammaantood nimba waxba kaga qayb qaatay mid oo kharash kaga qayb qaatay mid maskax kaga qayb qaatay iyo mid loo xil saaray oo organization-ka maanta waxaan rajaynaynaa sida ay reer Beerna u kala dambeeyaan ee ciyaadada u kala dambeeyaan insha Allah taala ilaahay inuu xoojiyo waxaan rajaynaynaa muddooyin badan inaanu noqono dadkii masaajidkan iyo masaajid badan sii dhigta aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa dhammaan community-ga Soomaalida halka jooga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anigoo ah magacayga Cabditaah Maxamed Salaad kamid ah qabanqaabada masaajidka Beerna waxaan maanta halkan albaab ka furnay masaajidkii wada sugayna ee Soomaalideena taasoo loo qabo baahi weyn marka alxamdulillah ilaahay maanta uu nagu guulay marka waxaan rajaynayaa kii na anfac inuu noqdo ilmaheen ay wax ku bartaan annagana insha Allah diinta korarsano waxaan rajaynayaa insha Allah inuu noqon doono meel noo ah kulan oo aan isku wareysano ubadkeena insha Allah ay xafid quraan ku noqdaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ujeedada masjidkan waa in uu noqdaa xarun diimeed iyo mid bulsho kana qayb qaata nabadda wada noolaanshaha iyo isfahanka bulshada Switzerland Munir Kaskay Switzerland